markuu ka soo baxay buu ii yaray wuxuu yiri ninyahow waxaan rabaa shaahid inay iga noqoto waan gafay gaf weyn baan sameeyey haddaad iga dambayso u sheeg soomaali inaan ka shallaayay qabsashadii aan qabtay dowladda soomaali waan u gafay maxamed ibraahim cigaal ogow adigu gobonimo doon baa tahay waxa kaa horeeya waa waxaas ogow muxuu yiri igu celi yu u gafay wuxuu yiri waxaan u gafay maxamed ibraahim cigaal sabab waan qabsaday dowladda qabtay dowladda prime minister dambi uusan lahayn baan saaray ilaa dambi male soomaaliya wala dambi leh kuy nasaba maaha soomaali u giri ogow siyad bara ku dhahay maxamed siyaad dowladdii cigaal inaan rido waa ku qaldanaa u leeyahay waan ku khaldanaa waana ka shallaayay meelaan aaday male ha idilaan hadday rabaan soomaaliyaad markii qixi waa isla soo qaxdana leeyahay waa soo qaxnaa kismaan isku macsalay isku gaari soo raacay kismaan isku macsalay ma kala gaari kismaan isku macsalay aanu ii naxay wartay aadid maxaad fadhi doontaa maxaa falaan ku yiri waa iska dhiibaya meel aaday male wax qaranka waa dowlad meel ma laga yaab maxaa waxaan ku carruurtay inay biyuudu wasoo laakiin aniga kolley ma ka baxayn ku waxaan dambiga aan galay xataa hadday idaayaan Kenya ana gilti ah ko Soomaali ma gashan dagaal diiltigaasaan la dhiman xataa hadday liidaayaan ku yiri oo aan dowladda Kenya waxba yeelin aniga waxaan u dhimanay dulmiga yani dhibaatada Soomaaliya u geystay yarkayga ay weydiiyay markaan soo xorray aabo daarood iyo hawiye maxaa way waan naxay waxaan ku yiri aabo waan ku khiyaanay waa ka xumaay waad ogaan doontaa hadda waxaan ku sheegi karaa ma afgooyan Soomaaliya soo xorray yarkayga 9 jir ah wala yaab wax dhacay maxay wir daarood iyo hawiye aabo waan ku khiyaanan ku yiri aniga ma moodayn waxa inay jiraan laakiin waad garan doontaa hadda waxaan ku sheegay male aabo waa carreynaa naftaan la carreynaa